بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال waxaad nagala socotaan waa Gorgati TV waana maalin ciida barnaamijka maanta aan halkan kugu qaban doono waa barnaamij ciid iyo hambalyo isugu jira iyo mataqaana waxaan igala qayb qaadanaya hadii Ilaahay idmo nadiifo cali kullane iyo nadiifo qaran iyo fanaanka weyn Cumar Sheekh Ismaaciil Cumar Haybad barnaamijkana waxaa idin daadihinaya waa anigoo ah Axmed Cali Huday waxaana idin leenahay kullu caam wa antum bikhair waxaan marka ugu horeeya jeclahay inaan siiyo siday ugu hambaliyeyso shacabka Soomaaliyeed maalintan ciida ah hadii Ilaahay idmo nadiifa cali kullane nadiifa soo dhawow oo ah fanaanad kamid ahayd fanaaniintii qaranka Soomaaliyeed waxaan filayaa fanaanka Cumar Haybad inuu mataqaana ka daayiri xoogaa awsaga fanaaniintii hore soo gaarin marka insha Allah taala nadiifa cali soo dhawow السلام عليكم هرت ملي مقلع si fiican وإذن سلام يا دمانتين تيفيغا غرغارتي تيفي أو دادهنا أيو أما ما عرفتي ونو معمولا يو ولالكين أبوان أحمد علي كودي ولاش نظيفة قرن الفنان عمر حاج إسماعيل عمر هيبد دمانتين iyo umada Soomaaliyeed ba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum ciid mubaarak adinka iyo dhammaan umada Soomaaliyeed oo daafaha dunida iga dhageysanaysa waxaan idin leeyahay ciid mubaarak waxaan leenahay umada Soomaaliyeed ciid wanaagsan meel kasto aad joogtaan haddana waxaan siinayaa insha Allah taala nadiifo cali nadiifo qaran soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام دمان والله كم دايستان تي في غورغارتا ugu horeeya Ustaad Axmed Cali Huday الأبوان عمر هيبة فنانadeenii gobolada waa bari wala shay nadiif cali kulan aad iyo aad ayaan maanta ugu hambalyeynaya hambalyada ciida iyo waliba umada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan daafaha dacalada adduunka وأن لا عيد مبارك مادام أنا أي نقطة سوق صفيو في UK مالك قوات أي نقطة هاي وحن لا عيد مبارك أنت شل عيدي يقولي بقى أنت إن ما أنت عيدنا وحن لا عيد مبارك ومد الصوماليات إلهي نسمع سنة كيفة وعليكم السلام أباي لايف أن كجراتي يوتيوب كان أن لايف كجرا سوق أباي إلهي هنقول جارسي سنة كان سنة كيسة عند الدرية عبارة صوبانية عاقمات الأستاذ أحمد الهدي نمر ربا أو نودة هي تي في وجارتنا وأمهد علينا أحتاج يكمل كيفنا وحنا يا سجارة عيد مبارك عيد مبارك أنا قلنا إذن لنا هيدا مانتين أنت ندرسنا إنسا أنت برنامج نقلت طيب قابل نقلت طيب كان إنسا حتى أنا وحنت وينيا فنانك عمر هيبد وأن مدة 25 سنة mataqaana ama ka badan 30 sano ku dhow aan asxaab ahayn Cumar ciid wanaagsan adiga iyo caruurtaada iyo familkaaga iyo inta ku garanayso dhan soo dhawow ومحسن تحية أبو أحمد علي هدي فنانة وين نظيف علي كلنا ولا شيء نظيف قرن دمانتين عيد ونكسنا يا ندين الله هاي فنانين الصوماليات meel kasto ay joogaan dal iyo dibad iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda nabad ku gaara iyo nabad iyo caafimaad iyo baraare ayaan Ilaahay idinka rajaynayaa dhamaantiin amiin assalaamu calaykum aad iyo aad u mahadsantahay Cumar waxay ila tahay inay tahay maalin ciida waxaan ognahay inaad tahay fanaan aad u macaan waxaan ka codsan lahay inaad noogu furto heestii alla maanta ayaanta iyo ciida wanaagsan ee Maxamed Saleeman Kube iyadoo bila muusiga iyadoo codkaaga kaliya bila muusiga insha Allah waayahay Maxamed Saleeman ayaa lahaa heeskan Allah u naxariiste aan isku dayay inaan qaado alla maanta ayaanta iyo ciida wanaagsan
allamaanta ayaanta iyo ciida wanaagsan ilaahayna siiyey isagaa ku abaale ilaahayna siiyey isagaa ku abaale way ahaataye maanta si wanaagsan oo ciida way ahaataye maanta si wanaagsan oo ciida caalamkeenna iftiimay xidigtaa ku astaysan caalamkeenna iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahayna siiyey isagaa ku abaale ilaahayna siiyey isagaa ku abaale way ahaataye maanta si wanaagsan oo ciida way ahaataye maanta si wanaagsan oo ciida ما شاء الله waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno ama aad ka wada warqabtaan aan rabnaa inaan idiin sheegno ama aan dadkana daawanayn la socodsiino halka uu ka yimid magacan TV-gan ee Gorgate. Gorgate waa beelo Soomaaliyeed muddo dheerna ay ka dhaxeeyeen kala qaybsanaan iyo is-afgaranwaa laga bilaabo bishii September 28 waxaa la aasaasay ama laga shaqeeyey inay beelahaasi walaalaha ee farqigii u dhaxeeyey inay dhameeyaan oo quraafaadka iyo diin la'aanta ku dhisnaa waxa lagu guuleystay in arrintaas wax laga qabto ramadaankan marka waa ramadaankii ugu horeeyay ee beelahaas walaalo aha oo iscafiyey oo waxba isu haysan oo gacmaha is haysta ay soo gaaraan oo ay ku ciidaan sidaas darteed waxaan ugu waajib ah dhammaanteen inaan ugu hambaliyeyno guulaha barnaamijkaas laga gaaray dadka Soomaaliyeed kalena ay mataqaanaa ay go'aansadaan wax aan la karin ama aan la xalli karin inaysan jirin wax walba loo istaagana in la xallin karo dhibaatooyinkeeda hadday tahay mid dhaqan iyo mid siyaasadeedna inay iyagu ku talagalaan inay xallistaan mid qaybteen labaad ee barnaamijka midaas ku saabsanaan doona haddii ilaahay idmo waxa halkaan nala jooga maanta sida la socotaan Nadiifa Cali Kullane oo ah fanaanad Soomaaliyeed sidoo kale Nadiifa Qaran oo ah halgamaa arrimaha Soomaalida mar walba u taagan iyo fanaanka weyn Cumar Sheekh Ismaaciil waxa barnaamijkii ugu horeeyay iyo kulankii ugu horeeyay ee Yurub lagu qabtay igala qayb galay Nadiifa Cali Kullane bal Nadiifo waxa dhacay bilahaas hadda waqtigaas aan joognay iyo meesha la gaaray iyo maalinkay bilaabatay maanta meesha wax marayaan adigoo ummadda u sharaxaya dareenkaagana sii raacsiinaya ummadana la dardaarmaya soo dhow mar kale aan idin soo laabtay assalaamu calaykum waa idin leeyahay maasha allah axmedow horta meeshii aan ka soo bilowno waxay ahayd u gogol xaar aan u gogol xaarayno walaalahayagii Maxamed Gorgarte oo ma garanaysaa muddo qarniyaal aad u fog ah wax tirsanayay gogol xaarkii way naga aqbaleen wayna naga ogolaadeen maaragtay gogashii u horeysay oo magaalada Muqdisho laga dhigay alxamdulillah way naga ogolaadeen ayagana gogol kale dhigeen shir kale xamar ku qabteen ay leeyihiin waan aqbalnay waxaa noogu soo xigay labadaa shir oo Muqdisho ka dhacay shirkii Axmedow aad noogu imaan jirtay dalka Sweden magaaladiisa caasimadda labaad ee Tabori oo aan halkaas xafladda ku wada qaban jirnay gudoomiyaheena Ilaahay ha caafiyeena uu asaguna noo iman jiray xafladdaasina waxaa noogu soo xigay xafladdii kale oo nooga qabsoontay Minnesota ama dalka America oo si cajiiba iyaduna u qabsoontay maasha Allah waxa ku sii xigtay xafladdii kale adigu aad maartay horjoogaha ka ahayd ka dhacday dalka UK waxaan dhihi karnaa intaas oo xafladood oo isdaba jooga
intaas oo maaragtay goglood waxaa kaloo ku sii jirtay Axmedow xaflad ka dhacday magaalada Burca iyo xaflad kaloo ka dhacday magaalada Boorame xaflado kalena ay jireen la rabay inay dhacaan laakiin barnaamijyada xanuumadan ay maaragtay daraadood u qabsoomi waayeen ayada oo shacabkii meel walba uu joogo uu leeyahay annaguna markayaga aan dhigano anala soo gaarsiiyo oo dee dadkiiba ay qofkaan dhiganiba u maaragtay qaraacansan yahay sida ay u rabaan ay ugu baahan waxaan dhihi karaa Axmedow meel weyn buu gaaray qof kastana wuu soo dhaweynayay qof kasta oo loo sheegay wuxuu lahaa maasha Allah tabaarakallah waan sugi weyne ilaahay baa mahad iskale Axmedow waxaad arkaysaa inuu yahay wax ilaahay samada ka wato oo ilaahay aqbal inay tahay waxaad ku ogaanaysaa برنامجka ما قف الله قف كله شجابة يعني سي عجيبة أيه أسودويناي طلابة القاضي سي عجيبة أيه أقبسومي مركو عندي كرنا وواحد لهي ورالكها واحد بدننا وين قبسومي واحد بدن أيه قبسومي ما شاء الله تبارك الله ميل في عنا هذا وينو مريسا دكي عندنا وحي يعني ما أنت ودقيه إني ولا شالنا أخاين شيطان أديكتي شالي ما أنت شيطان كلا يسكن ناري ولا لهود أي معرفتي ما أنت أسوه يدين أيجنا أي ديار أويين إني ولا لهود وحلقة بصدان أين معرفتي سود وينيان أرنكاس لقرادين أيو حقول هذا أميدوجا أما معرفتي شيسكا ولا لماذا المقربات حقوق سيدريا waxa hawshan wadaanina waxa weeyaan telefoonkiisa codku furan yahay oo banaanka ka dhageysanayo codku furan yahay oo banaanka ka dhageysanayo annaga xiro codka marka codkayga ma maqashaan ma Axmed soo laba noqonaya Umar adaa laba mar ku jira miya ha okay okay ku soo nadiif Umar uu soo gali doona insha Allah marka waxa weeye Axmedow arrinkaas waxa wada oo uu istaagay waa ilmo gorgaarti oo dhan ilmo gorgaarti oo dhan baa soo dhaweeyay ilmo gorgaarti oo dhan baa ma garanaysaa hawshaas dhexda u xirtay hadday tahay silcis hadday tahay wadalaan hadday tahay daame meel walba ay joogaan siyaasi oday dhaqameed maxaan ku radaa aqoon-yahan rag iyo dumarba dhexday u xirteen waana isla qaateen okay waxa markii aysan ahayn wax qabiil lagu dulminayo markaysan ahayn wax ma garanaysaa loola jeedo dhibaato ee ay tahay wax walaal loogu hooyanayo ama lagu xaal marinayo waxa way ilaahay baa raali ka ah ilaahay baana fududeynaya alxamdulillah Axmed waxaan aaminsanahay inta hawsha aan wadnay bilaha kooban ee sanadka aan gaarayn iyo maanta meeshay wax marayaan waxa weeyaan wax aad iyo aad u kala fog weeyaan taasna waxaan dhihi karaa waa isla doonasho ilaahay iyo wax ilaahay raali ka yahay intaada ka bixin nadiif oo kulay adigu wax badan aad u soo joogtay barisamaadkii baad soo joogtay wax badan aad ogtahay dareenka ay kugu reebtay hawshan isbedelkan yimid iyo siday ku saamaysay bal noo raacsi wallahi Axmedow been kuma sheegayo aniga dareen bay horta igu reebtay haddana iguma reebin anoo dhalinyaro ah oo yar ayay dareenkaasi oo qalbigayga ku jiray sababto ay tahay anigu markaan ubaxa kacaanka ahaa oo aanan fanka soo gelin dadka aan saaxiibada la ahaayo dhan waxay u badnaayeen maxamed gorgaarte number 1 waxa ka ahayd Siraat Haliil Warsame ilaahay ha u naxariisto saaxiibaday aan isku dhimano oon saaxiib lilaahi la abay ahayd haddana aan isku ubaxa kacaanka aan ku wada jirnay haddana kooxdii halgan aan soo wada galnay oon wada shaqayn jirnay Siraat waan ka jeclaa kuwa maartay walaaladay aniga ah baan ka jeclaa Siraat markii kelmadaas faquuqa lagu dhaho horta waxay ahayd ilaahay u naxariisto qof isku kalsoon waligeed ma isqarin qolada ay ka dhalatay way ku faani jirtay waxay qaatay hees la yiraahdo ma nin 10 awoowiye 2 aabala jira
ma nin loo abuuray baa jira in awr kiraale laga dhigo ma nin loo maxaa leedahaa ma nin loo abuuray baa jira in ifka raaxa lagu askumo aqoon darrada miya soo lama ekoonayn uur hooye lama gelin inna laguma wada dhalan qof walba 9 bilood buu ku dhashay xilligaasaan anigu la xanuunsan jira saaxiibaday xilligaasaan ogaa in dadka dulmi lagu hayo xilligaasaan anigu garwaaqsanaa inaan qofna qof ka sarrayn 9 bilood lagu wada dhashay la siman yahay ilaahay xaggi laga siman yahay adduunkaana qof waliba uu shaqaysto diracaad xirata la xiranaayo baastadaan cunaayo la ila cunaayo aanan gabadhaa waxba dheerayn aanan wiilkaa waxba dheerayn ayaan mar walba anigu ayaan garwaaqsanaa runtiina maadaaba aan ahaa qof fariinta bulshada gudbinaysa ama markaas inkastoo hadda aanan fanaan ahayn axmedow adigu fanaanad baad igu sheegaysaa laakiin fanki waan ka baxay laakiin asxaabtaydii waan iska warhaynaayo waan wada xiriirnaayo waan wada soconnaa xilligaas aan ku jiray professionkaas aad baan uga damqan jiray walow aanan nasiib u yeelan sida Cumar Haybad oo kale inaan qaab sugaan ahaan aan ku soo gudbiyo aad iyo aad waa aad iyo aad u mahadsan tahay halka su'aalan rabo inaan ka gudbi doono aan kugu dhaafo adiga ma ka dhici jirtay arrin faquuqa fanaaniinta dhexdeeda oo ma ku soo martay adiga maya anigu kulley dadka aan la shaqaynayay markay ugu yar yihiin ilaa 10 qofood waan wada shaqaynaynay oo ma garanaysaa wax hayb sooca ama wax faquuqa oo fanka dhexdiisa lagu hayaa ma jirin dadka noogu caansan bay ku jireen dadka noogu qatarsan bay ku jireen ninka la yiraahdo Cabdi Taliil baan wada shaqaynay Xasan Diiriyaan wada shaqaynay Siraa Taliil baan wada shaqaynay Maxamed Ali Liibaan baan wada shaqaynay Ruqayya Cabdi Jaamac baan wada shaqaynay kow iyo laba soo ma dhihi karo inta qof oo wada shaqaynaynay welina ma aysan ku dhicin in la faquuqo markii laga reebo saaxiibaday oo wiil ay isjeclaayeen oo xoogaa uga tegay haybtaas laakiin dhibaato kale oo professionka shaqada dhexdeeda lagu sameeyay maysa jirin qarannimadu waa muhiim dowladnimaduna waa muhiim ma taqaanaa dalka iyo deegaankaba Allah noo dejiyo waxaan ila tahay inay dhinaca fanku ay aad dadka uga horeeyaan badanaa waxaad arkaysaa dadka arrimahan la dagaalamayo oo sinaanta iyo wanaagga iyo wada noolaashaha Soomaaliyeed oo dhan raadinaya inay dhinaca fanka u badan yihiin iyo dadka wax abuuray ay u badan yihiin nadiifa qaran wax badan aad sugaysaan u malaynaa adigana soo dhawow aragtidaada muddaad soo taagnay muddaad shaqadan soo waday wixii soo dhacaad og tahay meesha maanta wax marayaanad og tahay ciiddii koowaadna way tahay ee midnimo lagu soo gaaray ahlan wasahlan الأستاذ أحمد علي هدي هرفا ما صنتهاي أنت وجود قلن وحن عصنا يا ما دام أبوان فنان كقاري هستي دنبال ونلجوه أبونا إريضة أبنوصة ما يسي هستا سنة أي تاي هست قيرالة آدي أدنى أو جعلها إنه هرتا هدي أي سورة قلتها فنان ونوقع يولي با ما نفرح حداد ما دام أي تاي إن هستي ولا شان حاوكين أي قاضي loo qaado walaalaheen aad noo daarto adoo aad u mahadsan barnaamijka inta u gudagelin waa maalin ciid ah waa maalin farxadeed si loola qaybsado walaalaheenii kaleento heestii dhambaal iyo heestii ay xawkiinba ay UK nooga qaaday markii gobashii gargaarti la dhigayay adoo aad iyo aad u mahadsan waa yahay kulley waxaan isleeyahay waa si gudagelaa barnaamijka intaad nooga daaray haddaa haystana waa okay heestii waa tanaa bal midii heestii tanna noo fasaxayna haddii alla
وسيداس هستاس واحد نقطة حواكين وان كعماي يولي بحريدي أبوان دوسة أو همبليانا إنه ريدا اسمعنا أهي مركا أبوان دوسنا aad abwaan cabdi duse oo ka mid ah halgamayaasha midnimada gurgaartay aasaasiyaasha ayaa ereyadaas sameeyey walaashan xawkiin waa uga mahad celinaynaa walow aan jeclayn galabta inay nala joogto waa salaamaynaa xawkiin ciid mubaaragna waan leenahay ciid mubaarak xawkiin fanaanadeenna qaranka aad baan u salaamaynaa kolley waxay ila tahay haddii insha allahu tacaala
aadan barnaamijkaaga hore usii wadanayay nadiifo qaran waxaan u malaynaa inaad tiri markaan tii wadana marka heesti abwaanka heesta fanaanka usoo laaban doonaa oo dhambaal adiga aad noo tirisay haddii aysan diyaar ahayn marka horta mar kale waa salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibad waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahayna sanadkan sanadkiisa nagu wada gaarsiiya caafimaad iyo cimri dheer iyo cibaado suuban si gaar ah waxaan halkan uga salaamayaa beelweynta gorgaarta hawiye meel walba ay joogaan anoo ku hadlaya magaca curadka hawiye ee karala hawiye murusade waxaan uga hambalyaynayaa isku duubnida iyo midnimadii 9 bilood la soo waday ee maanta ubixii la beeray uu miro dhali rabo marka ummadda Soomaaliyeedna sidii gorgaarta oo gogosha u dhigay oo la isugu soo ooyay oo la isugu micnihii farxad qabay la isugu yimi in ummadda Soomaaliyeedna saas camal intay gogosha nabadeed dhigtaan ee ayaguna saas ay u curiyaan ubaxyada ayaan ku sugaynaa dii ay baraale ka dhigo midnimada gorgaarta hawiye anoo haddana guddiga sare ee gorgaarta hawiye salaamaya oo ugu horeeya gudoomiye Cabdiqaadir Cali Yarow oo aan leenahay gudoomiye ciid mubaarak iyo waliba guddiga sare ee xubnaha sare dhammaan ayagoo isku wada duuban magacyadooda sama wada koobi kari guud ahaan waxaan leeyahay ciid mubaarak midnimada gorgaarte waxa ay soo socotay waa 9 bilood 9kaas bilood mirihii soo curtay ama mirihii la abuuray oo gogosh ugu horeysay Muqdisho la dhigay Muqdisho la isku ooyay gogosh labaad la dhigay Sweden oo walaashay nadiifo cali kulan ee nagala joogto oo al-ustaad Axmed Cali Huday intuu xagga tagay uu ku ooyay uu jilbaha dhulka dhigay oo annagana shaashadaha kale ka daawanayna aan wada ooynay farxad daraadeed si aan ugu hoyino dhammaanteen annagoo isku duuban walaalaheennii aan muddo la kala raagay marka taasna waxay dhalisay in ismasaamaxaas iyo isu hoyashadii in guul laga gaaray 9 bilood gudahood gogoshii labaad oo ka dhacda Mareykanka oo ayadana sidoo kale la isku ooyay la isku hoyday maasha Allah waliba waxaan iloobay markii gogoshii Sweden la joogay in kuwinteeni taashka loo saaray walaashay Xamdi Kalgacal oo kuwinta gorgaarta hawiye laga dhigay maasha Allah gabadhii gogosha quruxda badan ee gorgaarta midnimadiisii ayada iyo waliba walaashay kaafiso astaan qaran ama walaashay walaalaha mudlood gabdhihii bilaabay midnimadana ka shaqeeyay oo aan si gaar ah ugu mahad celinayo Xamdi Kalgacal waa idin la duubay lagu caano shubay abwaana diyaane iyo safiye iyo hodan iyo nadiifo cali kulan iyo xaliimo jaamaci soo ma koobi kara gabdhihii oo dhan meeshaas oo ay joogaan al-ustaad Axmed Cali Huday iyo gudoomiye Axmed Cali Yarow Cabdiqaadir Cali Yarow iyo waliba odayaasha dhaqanka beelweynta hawiye la isugu yimiday farxad ayay noo ahayd tii kale ku xigtana waa tii Mareykanka ka dhacday ayadana lagu caano shubay ugaaska guud ee gorgaarta hawiye maxay ahayd suldaanka guud ee gorgaarta hawiye suldaan mubaarak iyo waliba ugaasada gorgaarta hawiye ugaaso astur taasna waxay la gelisay farxad labaad markii saddexaad gogoshii kaleento waxaa la dhigay waa markaan Yurub iyo Mareykan aan ka hadlayno Soomaaliya aan kasoo gudubno UK oo hormuud noo ah ama uu noo hogaaminayay al-ustaad Axmed Cali Huday oo waliba reer UK gabdhaha UK boqolkiiba boqol aan ugu mahad celinayno sida qiimaha iyo qaayaha badneyd ay gogoshii UK ay isugu xil saareen dadaalka ay suubiyeen gabdhihii reer UK ee gorgaarta iyo gabdhihii kaleente ee walaalaha ahay ee hawiyaba sida ay ugu istaageen boqolkiiba boqol ayaan ugu mahad celinaynaa iyadoo meeshaasna lagu duubay gudoomiyahayna gabdhaha hawiye walaasheen bilaad oo ayadana caleemasaarkeedu noo dhiman yahay oo cudurkan jinni ilaahay naga badbaadiya dhammaanteen daraadiis aan dib ugu dhignay marka waad u jeedaan maalinba maalinta ka dambeysa farxaddii iyo reynreyntii iyo midnimadii gorgaarte way sii ballaaranaysay inta waxaan ku duubanay UK gudoomiyihii gabdhihii hawiye oo bilaad ka dhiganay ugaasadii gabdhihii gorgaarte oo Mareykanka lagu duubay iyo boqoradii gabdhihii gorgaarte oo Xamdi Kalgacal loo duubay iyo suldaanka guud ee gorgaarte hawiye suldaan mubaarak marka waa ilaahay mahadiis intaasoo farxad ah intaasoo laysu oynaayay intaasoo lays cafinaayay intaasoo aan u hoyanaynay walaalaheen maxamed gorgaarte ee loo yaqaan madhibaan
oo mar walba xaalmarinta haddaan naha beelweynta hawiye aan diyaar u wada nahay gogashana la dhigi doono oo lagu balansanaayo July laakiin waxyaabaha dhacay daraaddood ama waxyaabaha jira hakada uu galay ilaahay idankiis haddii la caafimaad qabo waad u jeedin cudurrada socda waxyaabaha socda wax dhaqaaqi kara ma lahan maanta iideed gurihii aan ku iidnay gurihii aan lagu dukaday waad u jeedaan ilaahay hana badbaadiyo marka waxaan muuqata gargaarta isugu duumay sida uu gobasha xariirta meel walba oo loogu hoyanayo walaalaha Madhibaan gobasha meel walbaba ay u noqonaysay maasha Allah ilaahay uu bulaalayay alxamdulillah in maanta dadku markay isku xaloolfayo yihiin dulmiga shalay iyo dambiga shalay aan galnay ama la galay maanta walaalaheen aan ka xaal marinay laga dhaqaayo mar walbana diyaar loo yahay gobashii weyneed ee Soomaali Maxamed la wacaayay ilaahay idankiisa la dhigi doono meeshaas haddana lagu sii xaal marin doono walaalaheen Maxamed Gargaarte ee ah curudka Gargaarte hawiye ee loo yaqaan Madhibaan waxaan leenahay si ayagana u aqbaleen mar walbana qalad waa dhacaa laakiin qaladka dabadii waa la saxaa marka farxaddeena lama soo koobi karo sida la isugu duuban yahay sida aan farxad u wada qabno annagoo dhan waxaan naga tahay ilaa ay hadda Yurub wadan walba wuxuu dhahay xafladda Gargaarte ayaan dhigaynaa cudurkan ayaa yimiday oo coronaviruska oo dib wax walba u dhigay ilaa Germany diyaar loo ahaa Denmark Norway meel walbaba in gobasha Gargaarte hawiye la dhigo ummadda Soomaaliyeedna way ku farxeen markii walaalaheen Maxamed Gargaarte ee Madhibaan aan u wada hoyanay ummadda Soomaaliyeed wixii wanaagsan way soo wada dhaweynaysaa sababtoo ah walaalo kala raagay kala irdhoobay kala maqnay oo maanta isu yimiday waa ilaahay mahadiis marka waxaan leenahay guusha saa u soo hoydeen midnimada Gargaarte hawiye waa ku mahadsantihiin sida aad mar walba ugu taagan tihiin sida looga mir dhalin lahaa aad iyo aad ayaan ugu mahadsantihiin annagoo isku wada duuban gogashii guudna la dhigi doono oo Muqdisho la dhigi doono haddii ay baraale ka dhigo marka waa isku soo laaban doonaa war haddii la bilaabo ma istaagee yaa marka waa isku soo laaban doonaa Axmed waa kuu soo celiyey waayahay aad iyo aadaad u mahadsan tahay Nadiifa Cali Cumar Sheekh Ismaaciil muddo 25 sano ama ka badan ayaan arrintan ka wada shaqaynaynay oo adigu aad fanaan heesta ka qaada suugaan ka sameeya markaad aragto ama aad maqasho dhibaatooyinkii aan ka hadlaynay dhibaato kamida in la xaliyay dareenka ay ku gelinaysaa waa sidee soo dhawow iigu celi Axmedow codka iga go'ay ha waxaan muddo aad u dheer ayaan ka wada shaqaynaynay barnaamijkan 24 sano ka badan ilaa 94 baad heesa ka qaadaysay suugaan aan ka samaynaynay maanta waxaad aragtaa horumar laga sameeyey arrintaas oo dhibaatooyinka aan ka hadlaynay dhibaatooyinka mida la xaliyey guushaas sidaad u aragtaa adiga maadaama aad tahay nin fanaan Soomaaliyeed fanaan qaran arrintaana asagoo si voluntary weligiiba u hadlayo heesa uga qaadayay asagoon weliba beeshan aan kamid ahayn hadda heshiinaysa laakiin wixii uu la dagaalamay wixii uu diidanaa qayb kamid ah ay xalisantay soo dhawow nabadgelyo naxariis dushiina ha ahaato Axmedow waxaan is leeyahay horta waa farxad aad u weyn oo aan la soo koobi karin maxaa yeelay bani aadanka wuxuu aad u jecel yahay guusha guuldarrada wax jecel ma jiraan wixii marka aniga cimrigayga intii badnayd aan ku howlanaa maanta haddii ay taaba galeen oo maaragtay ay dhaqan galeen oo ay socdaan waa aad iyo aad arrin ii farxad gelinaysa runtii mar walbana anigu waxaan ku soo baxay markaan soo garaadsadayba ilaah amarkii ilaah baa wuxuu ii abuuray qaab ah dulumka markaan arko waa caroonaya ma hadli karo indhaha i gaduudanaya dadka jareeyo markay dulumka arkaan aan ahay laba qof isdulminaysa magaalada anoo dhex socda xataa haddaan arko waa xanuunsanaya dabeecaddaasaan lahaa weligay marka dulumka in laga dhiidhiyo oo maaragtay wax ii dhaqana bay iska ahayd
haddana mar kasta sidii maaragtay aad awoodaadu tahay aad wax u qaban karta ayaad u qabanaysaa marka su-aashaadii weydiisay runtii waa arrin aad farxad gelinaysa maaragtay in aan maaragtay arko howlihii aan anigu dadkii wax ka soo bilaabay ka midka ahaa oo maanta miro dhalaysa inaan arko waa wax aad ii farxad gelinaya waa riyooyinkii aan lahaa weligay inta dhimanna waxaan jecelahay inaan arko anoo nool oo Soomaali dhan oo dulum ka midooday iska daysay dulum midaysan si walaalnimo ah si Soomaalinimo ah si muslimnimo ah u midaysan inaan arko aad iyo aad ayaan u rajaynayaa inta dhima dhamaystirkeedana insha Allah waayahay kolley wixii aad maanta noogu tala gashay oo ciidii aad ugu tala gashay dib baan maaragtay aan nagala wadaagi doontaa waxaa ka mid ah kolley heestii maaragtay uga qayb qaadatay heestii ugu dambeeyey heestii dhambaal oo aad ahayd maaragtay fanaankii qaaday bal markaa ku soo dhawow oo bal heestaa aan la wadaagno dadkii Ahmedo codka wuu iga tegey may maqlaysaan annagu si fiican aan ku maqlaynaa ha ii kaaje marka may maqlaysaan hadda ha muusiga see u maqashaan fiican walaalkii andhalanay aska layla dhigaye badda layla saaro walaalkii dhalaara ruuxii jirkaygiyo dhiigaygu tabayo walaalkii andhalashiyo halkaba wadaadne dhiga ila ahaayo walaalkii andhimirli jidka uga dhaqaaqe magaciisa dhumiyo dhambaal khayrle iyo nabad dhambaal khayrle iyo nabad wakuma dhabaya dhambaal khayrle iyo nabad dhambaal khayrle iyo nabad wakuma dhabaya malaha ruuxi shaytaan ku dhaato qalbigana ka dhoohane dhibaatadii ku gaadkiyo dhiilada ku haysa ay dhisataa markayduye nabi yuusuf tagartii adawgeenu dhigayba ceelka loogu dhaafe waxa noo dhaxeeyana waa dhaqamo shaydaan lagu kala dhexoode dhambaal khayrle iyo nabad dhambaal khayrle iyo nabad wakuma dhabaya
dambal khayliyo naba dambal khayliyo naba kuma dabaya Rabti waxaan haminayaa inta niilka la dhigay inaan koosha dhalinne har waxaan ku marayaa abayaasha shayda inaan dhababi doone Rabti waxaan haminayaa inta niilka la dhigay inaan koosha dhalinne har waxaan ku marayaa abayaasha shayda inaan dhababi doone dambal khayliyo naba dambal khayliyo naba kuma dabaya dambal khayliyo naba dambal khayliyo naba kuma dabaya dambal khayliyo naba ما شاء الله ما شاء الله afkaaga malab lagu qabay Cumar Haybad ma sha Allah tabaaraka Allah oo kiiroonaya runtii waan kiiroonaya ma sha Allah caanaha geel waan u xiisayba Malaysia caana geel iyo hilib geelba lagama helay alla Cumar waxaad jeceshahay lagu qabay afkaaga in adeer wallahi waan kiirooda أدي الله إله ناس كان المامي هذا كله وحى مريسة إسكالة أبوان أحمد علي هودي لحن كان وحى سميي محمد آدم شموري موسيقى وحى تمي عثمان جوستو أنا عدك يعني اللي سبتيني ومهد سنتين دد واوين بأسوه تجي دد واوين ما شاء الله أدي عبك ولبا ما شاء الله عدها الله يا صدي أو إنما أنا عاده ما شاء الله ما شاء الله عمر كل واحد بدنا ما أنت موجود تلاقي شيء فنانين بدنا يهديني كحالة طيب غاتان waxay ahayd inay timaado cabdihalle inuu yimaado ahayd waxay ahayd inuu yimaado daawud xanfar inuu yimaado ahayd waxay imaada xawakin inay timaado ahayd fanaaniin badan ay ahayd inay imaadaan laakiin waxaan u malaynaa hawshaas oo dhan adigay maaragtay waxaan ogahay aan rabaa anigu markii aan dhalinyarada ahaa fanaanka aan heesiisa dhegaysan jirin aadka runtii u jeclaa wuxuu ahaa ilaahay caafimaad taamaha siiya cabdi tahliil warsan aad iyo aad ilaahay waxaan u weydiinaynaa maaragtay horta inuu caafimaad siiyo ilaahay tacaala dembigiisa anigu waxaan ogahay maadaama aqoon kuu leeyahay fanaaniinta ugu codka dhow mid ka mida inaad tahay marka waxaan kaa codsan lahaa heesihii cabdi tahliil si aan ugu xasuusanno walaalkeen uguna ducayno hees ka mida inaad nala wadaagto iyadoo bilaa muusika cabdi tahliil ubaxaygii ayuu bari macallin ii ahaa marka fankaygiiba bilowgiisi isagaa maaragtay ka mas-uul ahaa ilaahay ha caafiyo هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل waxaan u malaynaa waad ka warqabtaa inaan barnaamij live ku jirno waa ka warqabaa oo ku soo dhawow live aad ku jirtaa wixii aad ka oran lahayd barnaamijyada socda adigoo mahadsan magacaagana ku bilaabaya iyo meeshaad joogto waa mahadsantiin horta marka ugu horeysa asalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhahdaa bashiir waxaan ka soo hadlayaa waddanka Austria Vienna soo dhawow walaal waa idin salaamay adigay iyo martidaada waa idin salaamay aadan ku soo dhawow walaalle maasha Allah walaal horta waa ilaahay mahadiis haddii
caqligaanu ka xorownay dadkana Soomaalida waxa way dhibaatadana haysato wax aan jirin in waxa way dadka walaalaha lagu kala qoqobo marka waa Ilaahay mahadiis Soomaalida waxa way dad wada dhashay oo dir meel lagu kala tagayo mala especially nimankan walaalaheena aniga waxaan nin mudulode abgale inkastoo Soomaalida ay walaalo tahaysan meel kala jirin haddana waxa way dad wada dhashay in la kala faqoqo laakiin alxamdulillah Ilaahay mahadiis dadka Ilaahay maanta xaq Ilaahay na garansi Ilaahay baa mahadiis kale marka waxaan leeyahay dadka walaalaheena oo soo dhaweynayna waana arrin aad u fiican intii garatay oo Ilaahay waafajin waxaan leeyahay waa ku mahadsan yihiin aad iyo aadan kugu mahad celinaynaa walaalkay ra'yigaada wanaagsan waxaan rajaynayaa in Soomaalidu ay halkan ka barato waxaan la qaban karin iyo waxaan la xallin karin inaysan jirin wax walba loo istaago in la xallin karo dhibaatooyinka Soomaalida dhexdeeda inay iyadu xallisato oo iyadu gacmaheeda ay ku xallisaysan cid aysan u daba fariisan marka ra'yigaaga iyo aadan u soo dhaweynaya waana kaaga mahad celinaynaa insha Allah walaalkay waana mahadsantahay ayo walaal adiga badan insha Allah assalaamu calaykum calaykum salaam waxa weeye marka Cumar waxaad wadatay arrintaadii ahayd Cabdaliil iyo inuu fankaada kamid ahaa dadkii mar soo gacan qabtay soo dhawow soco marka waan ku faraxsanahay inaad ii aragtid adiga dadka ugu dhaweyn karo codkiisa mid kamid ah inaan ahay sababtana hadiiba ay jirto taas sababtana wax kale ma ahan fankii ugu horeeyay iyo indha kala qaadkaygii ayaa isaga uu hormuud u ahaa oo macalinka ahaa ma fahantay waxaan marka idin qaadayaa iyadoo bilaa musiga heeska gaarabidhaan la yidhaahdo inaad taqaanaan baan u malaynaya si wanaagsan ruux bukaa bariidyo booqashiyo baxnaanali balaayaa ka baqashiyo bariidyo baraashali babula halibaaxaan barqankii waraysta buraa shabeelkaan ilabaadhidhaahda markuu yahoboodan waxyar wixii jacaylko wixii baray kasii dharan bilabaad dhacaysiyo biligtaa hilaaciyo gaadha bidhaankan kugu baadi doonaa wuxuu ibaray jacaylko wuxuu ibaray kasii daran bilabaad dhacaysiyo biligtaa hilaaciyo bilabaad dhacaysiyo biligtaa hilaaciyo gaadha bidhaankan kugu baadi doonaa eska waa gaadha bidhaan ما شاء الله ما شاء الله إلهي وحن أقبرينا قلبتا ومالين عيد إلهي وحن أقبرينا عبد تهليل ورسمي إن مدة أيو سرير سارين هاي أوجري نرول أدحيا إلهي وحن أقبرينا إن إلهي عافمات سي فنان كصومالية دولار كينا آمين 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 waxaan filayaa hees la yidhaahdo litacaarafu oo aad ugu magac dartay yacni in ilaahay annaga noo abuuray in aan isku aqoonsano qabiilka laakiin anaa isku dhibaatay heestaas waxaan jeclaan lahaa iyadana iyadoo bilaa muusiga inaad qaac nooga sid haddii ilahay heeskaa litacaarafu waxaa sameeyey isla axmed cali huday ayaa miraha sameeyey laxankana cabdi tahliil ayaa sameeyey 1998
الله أكبر نصيب درو ما يسن صوبحين هذا يصوبح لكن هدي الله يراه إن شاء الله waxay ahayd leexada warkaagiyo hadalkaadi leedo kulli faqday ceebaha waa loo gooyadeenu kulli faqday ceebaha waa loo gooyadeenu daliil looma helayey caamoyay ku luminine daliil looma helayey caamoyay ku luminine ogo waa lilaahida waxaa lagu ladnaade laruurada islaamkiyo nabigii la soo diray allahuma salli wasallim caleyh markii lagu dejiyayo litacaarafuu yidhi markii lagu dejiyayo litacaarafuu yidhi ima leexin anigoo lama kala sarraynine ima leexin anigoo lama kala sarraynine ogo waa lilaahida waxaa lagu ladnaade هسه سيدا سياي ما شاء الله إذا عاد مغليسان دبل نظيفه 198 ما شاء الله وقت قاس وهستا قاضي عمر أنا إنسان سميناي وحن 98 كي مركل لقى صوب الله والسنة كسدي لقى الرياضة حتى هو 22 years صح ما شاء الله و مركا معها واحد صوب بودعة أما نقول عصب إن هوشان كشقينه مدة أيام واحد partners of good معناها إن واحد وناكسنا كشقينه واحد حمان عن ربنا هسه نسيت أتكفر ما يصير واحد تاعي قبر ويل شو كان صدق كتير يقلح اسكو غير ماهي مركز هي نبي لصوت دري مركي لو تجيو اللي تعرفوا يري لما يملحن أنا يقول لما كلا سرينين أقوى لله إذا وحلا قول النار ما شاء الله مركا رجينا كالنتا عمر هيبت أورنتو وكتير ضدكو إني فهمان معها ويسيسو لبا يصدق يا معها waxaa jira album kaamil ah oo cabdi tahliil oo laxanka saaray dhammaantood oo mataqaanaa heesa oo noocaas dagaal loogaga soo horjeedo dhibaatooyinkaas ay tahay waxaan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed inay fahamto waxaana diinta ilaahayna lakuugu sheegay maalinta yoomal qiyaamo waxaa ilaahay qofkii asagoo qalba nadiifa wata taga ayaa liibaanaya marka qof cunsuriyuuna qalba nadiifa ma wato marka inaan iskilin garayno inta عمر أحمد وهرتا أدا كوهايستا أحمد علي هدي هرتا أديك إيو عمر هيبد واحد صوب اللودين هلجن كوقتي فقبات صوب اللودين وقتي آد وفقبات رنتي صوب اللودين أدينكون قرقارتي هيسن أدينكون سومالوين هيسن أدينكون أقوان يهامين كلا هيسن oo axmedna uu markaa tacabirayo waxa ka dhex guurxaya oo ah suugaanta uu ku cabirayo kala saraynta ama ma garanaysaa haybsooca oo uu kaga xumaa uu suugaantiisa ku cabirayay cumarna uu ahaa heesa ama wiil fanaana oo u dhaga nugul walaalkiis kana ajiibay inuu maaragtay halgankaas la galo qaadana marka horta waxaan dhihi karaa waqti aad u fog oo annaga iyo inta hadda idinla shaqaynaysaa aanan idin garab taagnayn ayaad soo wadeenood naftiina iyo maalkiina iyo qarashkiina iyo maskaxdiina intaba u hurayseen in aan qof bini aadana la dulmin ama maxamed gorgaarta ha noqdo ama soomaalida kale ee maxaan ku radaa dulman ha noqoto maaha maxamed gorgaarta kaliya waxa dulman ee soomaali badan baa dulman aan aaminsanahay inay maanta cashar u noqon doonto ama ay wax ka baran doonaan arrimahan hadda aan wadno oo ma garanaysaa wanaagga hadda ku jira oo meel fiican maraya marka waa idinkaga mahad celinayaa labadiinuba waqtiga aad soo bilowdeen iyo waqtiga hadda oon maaragta annagina idin garab taagannahay maasha allah
aad iyo aad u mahadsan tahay nadiif cali kulan wax weeye waxaan rabaa halkaan inaan kusoo qaado horta rag badan baan ahay group baan ahay groupka iyagii waxaa ka mid ahaa maxamed maxamuud kooshin sorry dabka iga sii dhacaya mobilkan inta la soo aaday maxamed maxamuud kooshin allah u naxariisto oo dhintay ayaa ka mid ahaa dadkii na caawinayey waxaa ka mid ah maxamed aadan shamuuri ayaa ka mid ah dadkii na caawinayey waxaa cumar haybad isagaa iga horreeyey oo mataqaanaa arrintan maalinkan kulanoon ka wada sheekaysanay isaga 10 sano ku jirtay anna 10 sano igu jirtaan isu nimid marka nin walba saasa ahaa war xagaan wax ka bilaabnaa haddii aniguna fanaankiiyana adna erayadii ad haysaaye aan dagaalka ku heshiinay maasha allah marka barnaamijku kursigu qiilma leeyahay lagu soo xiray waxaa qaadaya maxamed maxamuud kooshin erayadana anaa iska lahaa iyadana marka waxa weeye waqti dheer ayay ahayd waxaan rabaa marka inaan idinla wada socodsiiyo cumarna waa og yahay maxamed aadan shamuuri waxaa ilkaha looga daadiyey magaalada cabdisababa 94 waan ogaa anigu dadkii kaxeeyey oo ilkaha faalsada u geliyaan ahaa cabdisababa ha oo daantiistaha geeyey 8 miyaa loo geliyey mase 6 oo laga soo tuuray 99 kiiba maya 99 maaha 95 miyay ahayd waa marka laga ridaa ilkaha okay sax dadkii ka riday maanta waxay ku baashaalayaan ama ku raaxaysanayaan dalka Soomaaliya kolley cumarna wuu la socdaa adinkana waa idinla wadaagi doonaa dulmiga noocaas dadkii sameeyey annaguna aan goobjoog ka ahayn aan marqaati ka nahay fanaan qaranna uu ahaa in ciddii jaanis u hesha dowlad kastoo markaas jirta 80 sano hadday jiraan xabsiga inay ku dhintaan inay geeyaan waxay arrin mataqaanaa aan loo dul qaadan karin mataqaanaa waana idinla wadaagi doonaa magacyadooda iyo meelaha ay kala joogaan insha allahu tacaala dembi waxay ahayd fanaan qaran laga galay oo si qalada si darana loo dhibaateeyey taasna intaasaan ugu gudbaynaa cumar marka waa adiga ciidda hadda waxaad noogu tala gashay maanta maxaad noogu tala gashay inagana sacabka iyo mashxaradda yaa ani iyo nadiifo samiday aad iyo aad gashay maanta waa waqtigii waxaan jeclaan lahaa mar kale nadiifo qaran in la siiyo waayahay wixii ay nagu kabayso nadiifo qaran in mar kale la siiyo ha macnaha cumar wuxuu leeyahay waa isdiyaarinayaa intaan howleega diyaarsan waa run intuu ka diyaar garoobayo weliba maadaama haddee aan dhahano heesaha barabbiyo oo fanaanka loo qaadayo qaybta wadaniga qaybta jacaylka qaybta oo haybsooca oo dulmiga ah intaba inuu usuukeen dhex wado yaa ilaan waxaa laga yaabaa dad maanta waa maalin farxadeed moog tahay bisi barakaysaneed aan lasoo soonnaa qof walbaba waxba oo micnihii uu jecel yahay ma fahantay marka waa sax in siduu wadaniyadda laftirkeeda ha lagu daraa leeda meesha yaa qaybta wadaniyaddana ha lagu soo daraa leeda iyo jacaylka ha laysku wado labadaba lagama maarmo soo maaha marka waa in laysku dhex wado aad iyo aad fanaan oo dhanba wuxuu ku samaysan yahay jacayl soo maaha fanaan oo dhanba adig fanaanaad tahay fanaaniinta oo dhan maaragtaa iyo weliba abwaanada erayada xataa samaynaya ya mar walbaba waxaa la jecel yahay heesaha oo soo jeedinaya qalbiga nadiifay adaa ku haystee hadda cumar haybad iyo gabar la yidhahdo siraada cabdulle ugaas oo nairobi joogta waxay soo wadaan hees la yidhaahdo fanka iyo jacaylkaa walaalaa ma garad aad iyo aad ayeydee waay maasha allah marka siraada cabdulle ugaas iyo cumar haybad waxay soo wadaan fanka iyo jacaylkaa walaalaa marka waa sidaad u sheegtay qofka fanaanka ah iyo jacaylku kalama foga aad iyo aad wallahi hadda waxaa la yidhaahdaa weliba xanta aan ka gaarsiiye allah u naxariisto cumar dhuule iyo fanaan la foole labadaba heesaha aad iyo aad u naxariista badan ya oo maantoo dhan ay jecel yihiin inay ku soo jeedaan xaaskooda ama marwadooda heestay ka naxariis badan tahay ya innaba caadi maaha heesahooda waa heesaha dumarku ay aad ugu farxaan heesaha naxariista badan
dumarkun waa iska ciyaal moogtahay waa iska rabaan waxaas iska heesaan yaa maaragtaa horta marka abwaanaduna badanaa heesahaas jacaylka ay u badayaan erayada ma garatay oo hadda dumarka soo jeedana aad iyo aad waxaan filayaa marka cumar waa maqlaysaa xoogaa gabdhuhu waxay leeyihiin aan berisamaadkii aan dareenne xoogaa yaroo jacayla iyo wax noogu tuur marka waxaad maanta ugu tala gashay kolley insha allahu tacaala soo dhawow waan ogahay heeso badan oo heestii yurub ay kamid tahay oo aad leedahay jirada qaadaa jira heeso tiro badan oo xulashadooda aanan maaragta anu kala xuli karin laakiin waxaad adigu ugu xushay bal maantoo ciida waxaan noogu tala gashay kusoo dhawow maanta waxaan ugu talagalay dadweynaha iyo idinkaba hees la yidhaahdo ladan oo hees jacayl ah oo tiraahdo wadnuhu laabtuu ku yaal laga bidixda uga yaal laamaha dhiigguu habaa hadduu qof la'aan lahaa wadnahaas hadduu qof la'aan lahaa sidii loo waayi lahaa haddaan ladanay ku helin ayaa lay waayi lahaa عجيب إنه بعد يا وحبا كدعي haddaan ladanay ku hanan miyaan goob loo lameed miyaan leebkan ka rido miyaan lib ku gaari lahaa heestaasaa marka idinla wadaagaya insha allah maqalku waa sidee عادي يا مقلنا
لبلبو لبلبو تمان يدي نقل يا الذي لا عتبى يا الذي لا عتبى تعلقني كهنا يا أقول لك لبو لبي لبو تمان يدي نقل يا الذي لا عتبى يا الذي لا عتبى تعلقني كهنا يا الله لدنيك هلم يا لرنا الله لكن أني لها لحد إبو إلى لدنيك هلم يا لرنا الله لكن أني لها لحد إبو إلى إدال قلوبنا عندريكو كلها يولح صدوين على حديدينو تقول لك كما تقول لك عندريكو يولح صدوين على حديدينو تقول لك كما تقول لك ما شاء الله ما شاء الله erayadaas yaa iskale cumarow إن بعد مهن هستيا baaskan eradiis waxa iskale cabdullaahi muuse kalgacal oo abwaana wariyana ah oo muqdisho jooga waa aqaan laxankana anaa lahaa muusigana waxaa tumay yuusuf muumin subxaanyo maasha allah aad iyo aad adoo aad iyo aad uga umahadsan adigu waxaad noo qalbi leedahay yaqaan anigu haddaad heestaad noogu soo gabagabayn lahay waxaan u doran lahaa heestii Europe haddii aad mid ka fiican noo xulaysana ahlan wasahlan barnaamijka insha allah axmed oo codkaaga uga go'aya hadda waad i maqashaa soo maaha ha kolley waxaan ku soo dhawaanay waqtigii gabagabada haddii ilaahay idmo marka anigu waxaan dalban lahaa haddii aad adigu mid kale noo haynin heesta Europe haddii aad mid kale noogu bedelaysana adigoo ku mahadsan ku soo dhawow mar dhow insha allah heesta ka bacdi barnaamijka soo xirayna dalay waa tahay waa isdiyaari kartaa insha allahu tacaala heesta Europe ayaan markaa qaadanaynaa insha allah sidii aad u dalabtay ayaan u qaadanaynaa heeska Europe aan qaadanaynaa waan salaamayaa heeskan waxa iska lahaa miraheeda abwaan bashiir cali amiir oo markii ugu dambeysay xamar aan ku ogaa axmed cali huday aad u yaqaanaa bashiir cali amiir oo addis ababaan beri ku wada nooleen iyo nadiifa iyo waa wada taqaanaan laxankana waxa iska lahaa allah u naxariiste saaxiibkeen kooshinyare صح الله يرحمه muusigana waxaa tumay xasan axmed shariif oo dubay ku nool dhammaantood waa salaamayaa heeskaas marka ila dhegeysta okay
maxaan haystay waa xaggaagaan filaya xagga iyaga ma waayahay xaggayga hadday tahay الله هيكان احنا على هذي ابا اضاق في عند هيكان waayahay heeskaasi heeska yurub buu ahaa waxaan ku qoslaa bashiir cali amiira markuu heeskan samaynaya waxaa la yidhi bashiirow sida muxuu yidhi jacayl yahayo yurub aadayba ii yeedhayo waan yaabane sida yayda dur ama ar yixlo weli ani yaqiin ihor yuurura markaasuu horiskii wuxuu ka dhigay baryo yeeli maa yurna kuma tagay yarta dooshay buu doondoon yiraa markaasaa la yidhi war bashiiro waa sidee adiga baashi reer lahjad reer bay u dharatay baryo yeeli maa maxay tahay siri baryo yeeli maa ama jacayl ba jacayl laga tegay qof laga tegay miya sabaal iyo maaragtay
iska ilow iyo bal raalli ahaw yeelahaya madi bisaas maaha lahjad ahaan ku qabsaday lahjada baryo yeeli ma waa baryo yeeli ma aad baan ku fahmay baryo markaas wuxuu yiri baryo yeeli maayo miyaad rabteen uu yiri ha aayadda quraanka oo ka soo degtay baryo yeeli ma lahjadaas in lagu daro af suugaanta ii keenu yiri حديث ما كايسانو يري مثلا يعني ان laga dhigo yeeli maayo kaliya in la yiraahdo suugaanta yeeli ma hay tahay in lagu daro waa yiri suugaan yeeli maayo maba qaban kartaba baryo yeeli ma ay ku socon ha isaga waxay u qabatay lahjadiya waxay u qabatay badiga uu ku sameeyay heeska marka wuxuu rabay baryo yeeli ma ayaa la eg maaragtay dadka la eg barabbiyo abdina kalmadiyo diidaa miyaa marka waxaa la yidhi lahjadan naga daa markaasuu yidhi lahjadan intee yaa ka reebo yidhi lahjad soomaaliya soo maaha ma aayadaa kasoo degto yidhi oo la dhahayo lahjadaha kale laguma dari karo suugaanta baryo yeeli ma ninka ku qaadaya keliya ii qaadaya wallahi aniga waa heestan aad baan u jecla laxankuna caadi ma aha laxan iyo waxaa isugu tegay erayo aan caadi ahayn waa jacayl marna waa ku farayaray jacayl yurub aaday abwaan al-ustaad axmed cali uday waxa waa jacayl yurub aaday dhibkiisa uu leeyahay oo afrika looga soo tagay ya waa dhibaato ayadaas ya marka waa hees macaan oo ku turjumaysa dadka Soomaaliya iyo Yurub soo kala aaday ya waxa haaya marka qisadaas oo hadda hees loo qaaday ya taas way marka la jilciyo ya aad ya aad inta kala maqan ilaahay hayso keeno inta isqabta iyo inta isjecel oo kala maqan ayaan fursadan ciida uga duceynaynaa in ilaahay isu keeno waxaan filayaa aniga iyo nadiifo cali kulane iyo xitaa dadka laga maqan yahay inaan ku jirno marka ilaahay haynoo fududeeyo amuuraha aan ku duceysano ciidan aan ku duceysano cumar waxaan la qarxis weeyeen adeere bal aamiintaan dhahaya aamiin waxaad waa lagu duceystaa moogtay aamiin aad masha Allah horta mahad iskale na soo gaarsiiyey ciidan oo noo gartay inaan soonkii soonno maantana aan halkan ku wada ciidno waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ciideeda nagu gaarsiiyo baraare iyo bashbash aamiin haddii marka qof walbaaba oo idin kamid a ciduu salaami lahaa oo halkan salaan uga gudbinaya waa soo dhaweynaynaa wixii intaa ka dambeeyana barnaamijka waa soo xiranaynaa haddii ilaahay marka waa hadda salaamihii iyo qaraabadii eelkii iyo asxaabtii waaye kulley anigu shakhsiyan waxaan salaamayaa inta ay garanaysa iyo inta qaraabanahay oo dhan iyo asxaabteeda oo dhan iyo inta na daawata iyo inta arrimahan aan wadno raalliga ka ah oo xiisaynaysa oo dhan iyo Soomaali weynba waxaan leenahay ciid mubaarak ku ciida ciyaara xiisa leh ku ciida caleenta geedaha farxad iyo barwaaqo iyo baraare ayaan idin rajaynaynaa nadiifo cali soo dhawow cali kulan adiga maasha allah tabaarakallah marka ugu horeysa saddexdiina hadda iga soo horjeeda axmed cali hudey ustaadkeena qiimaha badan walaashay nadiifo qaran walaalkay cumar haybad waa idin salaamayaa markii laga soo gudbo faamilkayga carruurtayda iyo walaaladay waan salaamayaa waxaan salaamayaa dhammaan ilmo gargaarta meel ay joogaan oo ugu horeeyo guddoomiyaheena qiimaha badan halgamaageena weyn cabdiqaadir cali yarow iyo dhammaan guddiyada kala duwan ee midnimada gargaarta ee halgamayaasha ah waan salaamayaa meel walbo ay kala joogaan dhammaan ilmo gargaartana waan salaamayaa Soomaali weyn waan salaamayaa meel walbo ay joogaan ciid mubaarak baan leeyahay ilaahayna waxaan ka baryayaa in ilaahay xanuunada socdana naga qaado in alla inta la dulminayana in ilaahay ma garanaysaa uu dulmiga ka qaado Soomaalina waxaan leeyahay gacmaha isqabsada waxa isxasdina maxaan ku iraadaayay in alla intii ma garanaysaa aad isleedihiin waa la dulmiyey maanta aad nooshihiin beri ma loo lidine intaad maanta nooshihiin walaaladiina cafiska dalbada oo ma garanaysaa qof kastood isleedihiin waxbuu idinka tirsanayaa ku daysada gargaarte oo
gacmaha isqabsada guul iyo gobonnimo ciid mubaarak soomaali weyn أديات نظيف علي صدو نظيف قرن ما شاء الله ما شاء الله أولا محمد علنا يا تيفي وقرقارته ما تدانس كان فرحد عيدة aan la wadaagnay ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad aan uga mahad celinayno weliba alfanaan Cumar Haybad iyo weliba al-ustaad oo erayadii heebtii maxay ahaato noo sameeyay aad iyo aad u aheeday hees qeyro badan iyo weliba abwaankayni kale Cabdi Duse asagana heestii xaawakiin ay noo qaaday asagana noo alifay waxaan salaamayaa dhammaan asxaabteyda aan jeclahay ee igu xiran ee aan wada shaqeyno ee aan wada sheekaysano asxaabteyda facebooka baraha bulshada Soomaali weyn ka sokow ehelkaygii walaalahay waaridkay inta aan waarid ku ahay caruurteyda isku soo wada duuduub Soomaali weyn meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahayna sanadkan sanadkiisa ha nagu wada gaarsiiyo barwaaqo iyo badhaadhe iyo bashbash fanaankana waa u mahad celinayaa iyo weliba al-ustaad Axmed Cali Huday iyo TV Gorgaarte iyo dhammaan waxaan kaloo u mahad celinayaa midnimada Gorgaarte hawiye ee mar walbaba u heelan isku duubnida iyo midnimada iyo sida ay mar walbaba ay isugu kalsoon yihiin ayna ugu taagan yihiin in shacabka Soomaaliyeedna ay ku daydaan sababtoo ah wanaagu wuxuu ka yimaadaa marka la isu tanaasulo walaalka aad u hoyato walaalka aad raali galayso ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay ku dayda inaad adunkuna geed hoostiis aad ku heshiisaan aad isxalisaan aad iscafisaan maadaama bishii barakeysan hadda ay noo dhamaatay qof walbaba qofka kale walaalkiisa uu cafiyo aniga wixii wax iga tabanayna maantana cafi mutaabid iga yahay marka waxaan leeyahay TV Gorgaarte ha jira ha joogo soo celiya Axmed aad iyo aad u mahadsantahay nadiif cali Cumar Haybad adiga lagu soo gaaray waxaan u malaynaa dadka loogu aqoonta badan yahay ama ugu saaxiibada badan baa tahay marka soo dhawo asxaabta fanaaniinta Soomaali meel kasto ay joogto magaca Soomaaliyeed cid kasta oo qof kasta oo Soomaali ah ayaan leeyahay ciid wanaagsan qaas ahaan familkayga iyo walaaladay iyo hooyaday iyo caruurteydaba waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan rabaa sheeko yar oo gaaban inaan idinka dhaco laba nin baa deris ahaa marka labada nin baa tuur leh waxay deris ahaayeen marka muddo 30 sanadooda markaasaa waxaa dhacday ninka tuurtale waxaa la yidhahdaa Maxamed Qadar markaasaa kii la deganaa ee deriska ahaayeen baa maalin kasta markay iska soo horbaxaan ba wuxuu yidhahdaa ilaa waa dad derise tuurow goobe tuur haye buu yidhahdaa mugta wuu xanaaqaa kan markaasuu dhaho niyahow ilaah ma taqaanaa Maxamed Qadara aniga laygu wanqalay Maxamed Qadar igu yar ma dhegaystee maalinta xigta haddana markay is arkaan tuure goobe waraa goobe haye buu yidhahdaa mugta warniyahow maalintii dambe 30 sano markuu hadalkaa ku waday ayaa maalintii dambe ninkan oo magaalada xoogaa ku soo wareeray oo kuleyl baa iska jiray isagoo dhididayana wax la'aanna ay hayso suuqa ka yimiday buu tuuro dhididay ahaa buu yidhi maanta suu yidhi hoo bariiska iga qabuu yidhi dheg ninka feer buu la gal waa la feeray kii wax tuure dhihi jiray waa la feeray aduu feerkii baa ilaahay ajashi ugu daray waa dhintayba ninka dheg buu kaga siiyey ninkii baa waxaa la geeyey xabsigaa la geeyey nin baa wuxuu yidhi niyow maxaa lagugu soo xiray markaasuu yidhi niyow nin 30 sano sidaa ilahaa ayaan maanta feeray dilna isma lahayn wuu igu dhintuu yidhi ma intaas ahaa anaa kuu dacwoonayo loo yaraa buu yidhi maxkamaddii markii la tegey yaa ninkii garsoore ahaa wuxuu yidhi war niyahow waxaa lagugu soo eedaysanow inaad ninkaas deriskaaga ahaa 30 sano aad dishay maxaa ka jiro markaasuu yidhi waa dilay aniga laakiin sababtee u dilay dil isma lahayne waxay iga ahayd ninkan maalin kasta waxaan rabin uu dhihi jiro yidhi saasuu igu cayin jiray macnaha igu ceeben jiray iska canaana islahaa buu yidhi markaasaa la yidhi inaad dishay
ma qirsantaha waa qirsana guilty waayaa la yidhi marka dambiilo waayuu yidhi ninkii garsooraha ahaa dambiilo waayuu yidhi ninkan kii lawyerka ahaa baa intuu istaago wuxuu yidhi garsoore waxa aad taqaanid ma lahan weligaana wax maadan soo baran wax baktiyey baa tahay garsoorana waxba kama ogid ninkiiba caay u dhitayey suu yidhi war ninkan bilaa adabka ah maxkamadayda yaa soo geliyay lawyerna waxba kama ogay iga bixiya ka bixiya maxkamadda lawyerkii baa inta qoslo wuxuu yidhi 3 sakan aan ku caayaa u adkaysan weyso yidhi 30 sano ninkii la caynayo adkaysanaya maanta xukumaysaa yidhi say u xukumaysaa 3 sakan baad adkaysan weysaa maxkamadaad iga saaraysaa yidhi marka waxaan ku keenay sheekadan intii garatay ninkaas tuura ah meeshuu gaaray intay gaarin dadkan la dulminayo in dulumka laga daayo oo magacyada aysan lahayn loogu yeerayo magacyadoodii la dafiray oo dhulka la geliyey oo magacaysan iyaga baxsanba shaqo ku lahayn loogu yeerayo intaysan heerkaas ka gaarin dadkii gartay inay walaalahood dib u soo ceshadaan aad baan horta ugu mahadcelinayaa inta aan garadsanayna waxaan leeyahay war nala garta haddaad garan weysaanna waa laydin garadsiin because intan kadib xoog bay gaari doontaa annaga lafteenna ayaa u dhimanayno annaga lafteenna u dhiman doono inaan Soomaali mid ka dhigno oo kaliya waa idin salaamayaa dhammaantiin ciid wanaagsan laba nadiifo iyo ustaad Axmed Cali Hudey dhammaantiin ciid wanaagsan ciid العافية مبارك walaalkay qaali ah aad iyo aad u mahadsan tahay dhammaantiinna waa idin wada salaamayaa bye bye وإنه عيد إحتاجيل نول يهي يا يتيفي وقرقارت دي إيه برامج نظيفة كسكة أسقوانينا كسكة دي الله يراد يد الدموع فوقتها مايا مدة إيد وين تنشيقة إن شاء الله إيد وين تا كورة دي جانك لنا أوكي ما فهمتي ما يتيفي وقرقارت إن شاء الله وقت كستا أو مع البرنامج أي مادان وديار بان هاي هدو الله أود القرادو وأنا أقوم هذا علنا يا أبوان أحمد علي هدي يرمان ولا الله قيمها بضم. داود الواحد لسوق جاري وقت يعني سوق قبل لي برنامج كمان توحي قال قيب قادنا هي نضيف علي كلنا نضيف علي نضيف قرن عمر الشيخ اسماعيل عمر هيبت برنامج كان واحد لسوق سينا يعني أحمد علي هدي أنت برنامج كان وكلا دقوا بكل مدون وحنا دين لا هي نبدينه